active and passive voice. Waa active voice-kii passive voice-ka weli casriyeed aan weli ku jirnaa. Waxaan bilaabaynaa maanta waa tenniskii shanaad ama active voice-kii shanaad. Waxaa la yidhahdaa presenti perfecti tennis. Presenti perfecti tennis goor joogta oo dhamaatay waa active waa marka. Formula of passive voice-ka waxaa lagu helaa marka. Formula of passive voice-ka waa object dhibane plus lagu daray have been slash has been plus past participle of the verb plus by plus subject. Markaas waxaa noo soo baxaa waa active voice ama waxaa noo soo baxaa passive voice-ka aan rabno. Example asoo tusaale active voice ah. I have learned English. Waxaan bartay Englishka. I have learned English. Waxaan bartay Englishka. Amal has eaten. Waxay cuntay a rice. Bariis ayay cuntay. Bashir has taught. Wuxuu dhigayay English. Englishka ayuu dhigayay. We have brought. Waxaan keensanay a new car. Baawur cusub. A new car. Baawur cusub. Number 5. I have drank. Waxaan cabay tea. Shah ayaan cabay. Hay passive voice aan qaadano. Asoo ah markaan aan galno passive voice. Wuxuu ahaa kii hore I have learned English. Waxaan bartay Englishka. Englishka soo bila objectiga. Englishka. Has been learned. Waxaa bartay baami aniga. Englishka aniga ayaa bartay. Number 2 wuxuu ahaa Amal has eaten. Amal waxay cuntay a rice bariis. Muxuu noqonayaa a rice bariiska has been eaten. Waxaa cunay ama waxaa cuntay by Amal. Bariiska waxaa cuntay Amal. A rice has been eaten. Waxaa cuntay by Amal. Amal ayaa cuntay. Magaca ma isbedelo. By Asha, by Halimo, by Ahmed, by Shawa, by Muhammad, by Sulaiman, by Faisal. Waxaasoo dhan saas u qaadanay. Laakiin markay yihiin pronounska ama personal pronounska oo samanka ah waxaa la siiyaa by me, by you, by us, by him, by her. Isardii iska ilaali meelahaas. Bashir ayuu ahaa. Bashir has taught. Wuxuu dhigayay English ayuu dhigayay. Kasoo bila object oo ah English. English has been taught. Waxaa dhigayay by Bashir. Magaca isma bedelo. Wuxuu ahaa kii hore we have brought. Waxaan keensanay a new car. Baawur cusub. A new car. Baawurka cusub has been brought. Waxaa keensatay by us anaga. Wuxuu ahaa number 5 I have drank tea. Waa active voice kelmadaas. I have drank tea. Shah ayaan cabay. Tea shaha has been drank. Waxaa cabay by me aniga. Active in question form. Markaan waxaan u dhaadhicaynaa waxaan galaynaa active asoo active ah in question form oo haddana question form oo su'aal ah. Example have I learned English. Aniga ma bartay Englishka question mark. Have I learned English. Aniga ma bartay Englishka. Has Amal eaten a rice. Bariiska ma cuntay Amal. Has Amal eaten ma cuntay a rice bariiska. Arday u fiirso. Learned, eaten, written, seen, read. Kuwaasoo dhan waxaa leedahay waa past participle of the verb. Weliga iska ilaaliya. Has she written. Ma qortay iyada a letter. Warqad ma qortay. Has she written. Iyada ma qortay a letter. Warqad question mark waa. Have I seen you. Ma ku arkay aniga. Have I seen you. Aniga ma ku arkay. Has he read. Asaga ma akhriyay ehelu Quraan. Quraanka kariimka ma akhristay. Waxaan soo dhamaysanay active voice asoo ah. Haddana waxaan gelaynaa tusaale passive voice oo ah weliba in question u wato. Has English been learnt by me. Ingiriiska aniga ayaa bartay. Has English been learnt by me. Ingiriiska aniga ayaa bartay. Has a rice bariiska been eaten by Amal. Waxaa cuntay Amal. Has a rice bariiska been eaten. Waxaa cuntay by Amal. Amal ayaa cuntay. Has a letter. Warqadda been written. Waxaa qortay by her. Iyada ayaa qortay. Has a letter. Warqadda been written. Waxaa qortay by her. Iyada. Have you been seen by me. Ma ku arkin miya aniga. Have you been seen by me. Aniga ma ku arkino. Has a holy Quran. Quraanka kariimka oo sharafta leh been read by him. Asaga ayaa akhriyay.